السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magaca Master Bean ayaa marka aad maqasho waxa isla markaaba maskaxdaada ku soo dhacaya shakhsi laga yaabo xasuustiisu inay kaga tagto dhaqaaqayn wajigaaga. Waa jilaa caan ah oo dunida aad uga yaqaano inkastoo uu yahay shakhsi u dhashay waddanka Britain. Waa mid ka tallaabay dhammaan xayndaabyada dadka qaybiya hadday tahay dhaqamada iyo hadday tahay mid juqraafiga. Fanaan majaajilaysta oo dhacay qulubta malaayiin ku nool caalamka heer kastoo uu gaarsiisan yahay kala duwanaanshuhu. Wuxuu ku dhashay sanadkii 1955 waddanka Ingiriiska. Wuxuu ka baxay jaamacadda Oxford oo ah jaamacadaha ugu caansan dalkaas Britain, halkaasoo uu ka bartay electrical engineering ama farsamada elektriga, kana gaaray darajada masterta. Inkastoo aanay waxbarashadiisu ahayn jilaannimo, waa mid waxdare ka muujiyay dhanka jilaannimada. bilowgiisii wuxuu ka soo galay hawshan dhanka masraxa sida fanaaniin badan oo waddanka Ingiriiska ah ay ahaayeen. filimkiisii ugu horreeyay ee uu ku soo galay saaxada sinamaha oo soo baxay sanadkii 1983 kaasoo ahaa filimkii James Bond Never Say Never Again. sagaashameeyadii wuxuu bilaabay inuu qoro musalsalkii la magac baxay Master Bean ee uu ku caanbaxay. shakhsiyadiisa waxaa lagu tilmaamaa cunug yar oo dhallaan ah oo huwan qolof weyn. hadalkiisu ma badna, waxa uu ka sameeyaa qosolka, falcelinta dadweynaha iyo xarakaadka wejigiisa oo si farshaxanimo ah uu maamulo, xirfadina ku dheehan tahay. ninkan ayaa ku caanbaxay filimada maada ah ee aamusan. Master Bean ayaa ah magacyada ay ku faanaan shacbiisku. waxaa loo sameeyey taallo taasoo lagu dhisay goobaha ugu caansan magaalada London. wuxuu haystaa hanti dhan 130 milyan oo dollar, taasoo ku filan isaga iyo qoyskiisa. waa xaaskiisa iyo labadiisa gabdhood, una suura gelin karta inuu ku bilaabo mashaariic kale oo la xiriira fankiisa. Master Bean ayaa waxa uu aad u jecel yahay gawaarida xawaarahoodu dheereeyo, isagoo jecel gawaarida sportiga ah. nooca uu u jecel yahay baabuurta ayaa ah Lerin F1, taasoo shil kaga burburay si la yaab leh oo lama filaan uu kaga badbaaday. Master Bean ayaa jecel xawaaraha gawaarida, iyadoo hakad la geliyey hal mar in ka badan liisankiisa wadanimo. fadlan daawade haddaad ku cusub tahay channelka subscribe oo nagu soo biir, ana nagala bakhaylin inaad like noo saarto video.